إلى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة. أوكي إلهي وحلي كان استوضوب يو كيسدد يو بالليل كعو إلهي ستاك markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidh kala lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxaad soconaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan inaad tidhaahdo warbal waxyaamaahema inaad wax ka weydiiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal. qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiyaa waxa weeyaan rabu samaawaati walardi inuu xidhiidh la sameeyo. man biyadihi malakuutu kulli shay, ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco. ساوجد بقى النبي محمد بركة دبته كهرت بي لا وحلي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كانس ددا يو كانس تضوب يو كع هبينكي انتي سبضني يرمو يعني نسكي أما وحير كي يريبا ليل حلقوا علي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بيلايل ورع الأصبع الغودي بيه دعوذني يا الدين كان يا قرآن كان يا السيستم كان ينتقاضى أرين فضود ما هبا إلى هيلي والعلص بقى القصينا يا لكن ور كان علص وحقوه فضوينا يا وامحي حديد كاد إله إلى هذا كلما حديد كانوا رب لا لأنه ضعيفه اسبدل كانوا لش إني حق حمي ودقدقية مركز تو حوج استحديد كاد إله إلى هذا هينا حجسدد حجسنيس الدين كاغيه وحاقو وحوغوبيا. إذن آيات كان مركان اسكو سو دارو أنا قول رباينا الرأي قودون كتلمامو كوبا وحويان إن وحلا برتو ودين تادا عن علم ناتكو سقراتو وايو شبهاتك كما جوابي كرتيد أما مكر نولان كرتيد علم مو يعني شبهة دليل باكا الريحي كرا دانا الدليل هيسانين واتشابيسا إذن علمين ويهي لابد شهوات كنا حديد كاد إلهي لا دي بدني دي سريحة أنا دي إلهي حديد بدن لا يالط فافنت الدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل إحنا ولا كرتيد إن الدين تفاف في سيد ومركاسي أدفع في سيد صحابة دي النبي مركا مسائل كاكو أتكيستين noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la torture gareeyo qaar la dilo qaar tortureka ku dhinta isagoo nabi maxamed arkaya alayhi salaatu wasalaam qaar torture lagu dilo saxaabadiisa kamida qaar sidii loo torture gareynayay iyagoo tii u dambeysay laga sii daayo nooc walba way yeesheen. haddana ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بإلهي. مؤمنين توحى كمد الرج كرن شيء وحي إلهي وبلن قادين سو قضية الصدق إذا كلمات دين كرن شيء وحي محي بلنا إلهي لقالين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بلده وحكم ده قار سدا كل طي يقول شتكي كتاجن يقار سجية وضدا سنة هيا إلهي مركو صحابة تلمامي وحلوة تلمامي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والرقبة إلهي لي كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدست يا بعمش لعق حوكسيو أما الدنيا حوكسيو أنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا مرر بدل واحد هذا سؤال صار نغلطه هذه جور وحكم ده
salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadii baa caynkan waayo shaqada xaggeena muhiba laakiin tan kala agteena taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay ilaahayna wuxuu tilmaamayaa qolada tan waxa lagu sifeeyay inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in laga eriyo dhaqaala daraad ka yara cabsanaysaa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u leh number 1 ah cibaadadooda iyo kowa kan markaa waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lamaa sabaruu wakanuu biaayaatina yuuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaadee nebiga ku soo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxa qiimaha badan le inuu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay wuxuuna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faano oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aaluhu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yahay diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxaa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadasiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay bersia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama fogaa maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid a dagaalka qaadisiya 200 kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين ka mid ah Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay ka mid ah markaa Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhex maro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا mid ka midun haddaynu soo qaadno Ribci ibn Aamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon hadday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetska ayaa la waday dhulaadu ballaadhan ninkan muslimiinta ka socda fars yaroo gaaban buu wataa waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha Rabi'i ibn Amr oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana
markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine waxay culamada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco uu xaggu u soo dhaca waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adigoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay anigu umaan rabine haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waan iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aala baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay ma abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadee wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سواب بحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سنة إلهي يقول إن يدتك الضومة والنقضان ودتك حرية هلان baanu soconnaa buu leeyay cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kaloo soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigan kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiima uma samaynayso waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladdiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka bidhbidhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiini yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu ina leeyahay xataa haddii sida kaloo dhan laydinka xoog bato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclawna in kuntum mu'miniin war ha liidanina baa layidhi ha murugoonina idinkaa koreeya haddii iimaanu jiro hadaad rumaysan tahay rabbigaayo ku xidhan tahay adaa koreeya qisa labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbayay say u muuqdeena markii bayt almaqdis muslimiintu ay furteen bayt almaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo casharat almubashiriin ah hogaaminayay عبيدة بن الجراح يا عيد مدوتي دبتنا قولدي مسيحيين تمشي جوكتي waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa saasaanu kula heshiinayna laakiin furaha wuxun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ma jeclin maa yusiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaa dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada hayruk buu yidhi
abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa mid aan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adigoo kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaasi ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro raboon isagoo amiirulmu'miniinku u muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid qumman baad ku taagantay wainahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa laguu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wixii ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أو حلاني شيء كوات حويان إنه غربة كقبحنه وحي أهل كتاب كهور إلهي كتل مامين كقبحيين إنه كقبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كقبحضي inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan ba iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeedaynu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon kalimatul xaq inaad mar kasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto ولذلك بقى إلهي غير بنو إسرائيل كي هجاجي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها لي وبا إلهي الصبر والله الصبر نكتبال لي مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كالو إذن كهر إيمانا ياي يا إذن كصبر بدن نبا إلهي لي ورابطوا في ثغوركم goobaha aad ku jirtaan ee dhufaysyadiina xejista ilaahayna ka cabsada waa guulaysan doontaan baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala intaa kadib waxaynu u baahannahay nooc min alxikma nooc min alxanaka nooc min allabaaqa nooc min alrifq iyadoo mabaadi'da ku xejisanayno haddana inta aynu si fudud wax u wadi karna inaynu u wadno marka qofka la yidhaha diintaada xijisa dadka barhba u fahmo uun cunfi iyo dagaal iyo qallafsani iyo insidha